fiican tahay oo qiimada badan maalmaha kaleeto ka leedahay. Marka kan koowaad waxa weeyaan maalinta Jimcada waxay ku fiican tahay waa maalintii Nabi Aadam aabaheena Nabi Aadam la suubiyey oo Ilaahay wax badan ciidda ka suubiyey halkan ka suubiyey. Kan labaad waxa weeyaan waa maalintii Nabi Aadam la galiyey jannada. Tan saddexaad waxa weeyaan waa maalintii Nabi Aadam la keenay adduunka. Kan afraad waxa weeyaan Ilaahay wuxuu yiraahday yawm al-qiyaama waxay noqonaysaa maalin oo Jumca. يوم الجمعة maalinta Jimcada waxay ku fiican tahay kaleeto. Diin walba waxay leedahay makarasa dooratay hal maalin oo makarasa asbuuca ku dhex jirto oo Ilaahaygood caabuda maalintaas oo badan soo subiyaan. Dadka makarasa Kiristaanka waxay doorteen Sunday. Dadka Yuhuudda waxay doorteen Sunday. Laakiin Muslimka Saturday. لكن dadka Muslimka waxay doorteen يوم الجمعة. Marka يوم الجمعة dadka waxaa rabaa inay markii يوم الجمعة la gaaro dadka waxaa rabaa inay يوم الجمعة ka dhigaan maalin cusub asbuuc cusub. Marka sababta waxa weeyaan wax walbo dhacay Jumcada wax walbo dhacay waxay ahayd wax cusub. Markii Nabi Aadam la suubiyey waxay ahayd wax cusub. Markii Nabi Aadam la gelinayay jannada waxay ahayd wax cusub. Markii Nabi Aadam la keenayay adduunka waxay ahayd wax cusub. يوم القيامة waxay noqonaysaa wax cusub. Maalin walba يوم القيامة ma dhacdo. Marka dadku inay dhahaan asbuucaanayto wax fiican ma suubin marka asbuuca dambeeyo wayna makarasa wax fiican suubiyo Ilaahay caabudo wax wanaagsan. Calaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh.